قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا ولكي لا ننطفئ أهل كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا إنه قلنا هذا وقت عليها واجبات المجرد وكحديث صحيح عن الرسول الله كل حديث القدسي من عادى لي وليا صحيح البخاري كسارة من حديث أبي هريرة من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب ولا يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت فيه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه أدون كيغو وحان كتشع له وحان كواجبيه يغو مسو دواد wuxuu igu soo dhawaado waxaan ugu jeclahay waxaan ku waajib saas macna dadka qaar waxa arkaysa waajibaadkii dayacaya sunnooyinka qaar koodna aad xoog u saaray waajibkiina dayacaya ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu rabaa bal horta waajibka ku dadaalo waajibka xoog saar isagaas uu ilaahay ugu jecel yahay inaad dhameystirto dadaalka dheeraadana aad ku bixiso kadib wuxuu rabbi subhanahu wa ta'ala ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه أدون كيغو مركو واجبات كبوتو كدب كمزول يئنو السنوين كبطنا يقصر دواني إلى أن كتشعلام فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها مركان شعل هذا وأدون واجبات إليه sunnooyin kana badsaday ilaahay waa jeclaanaya waxaan noqonayaa barbiyo subhanahu wa ta'ala gacanta uu wax ku qabanayaan u noqonaya lugta uu ku soconayaan u noqonaya isha uu wax ku arkayaan u noqonaya maxaa laga wadaa bimaana waxa weeyaan kaalmaan la garab taagnahay aniga garab taagan oo u kaalmeynaya doonka ana ilaalinaya ana ilaashanayo rabbiga subhanahu wa ta'ala marka waajibaadka ayaa horeeya nawaafisha iyo sunanka iyo mustahabaadkuna way dambeeyaan رسولك صلوات ربي وسلام عليه مركب معاذ وحكول معاذ إرداها خير كميانا كوشيغن إيشك برسول الله مركز رسولك صلى الله عليه وسلم الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وبما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون رسولك صلى الله عليه وسلم صونك وقاشان هذا محل قال لي هلكن صونك واجبك أها قيبت هرا لكن هلكن صونك لقاه الله وصونك صنة صونك وقاشان محو قاشان كي هاي صونك وحو قاشان كي هاي شهوة بني آدمك دماعيك دونيتانك شهوك ساس برادد فقيت لن يرضى هاي وحي كبير سدان واي نبي محوكو يري صوم فإنه له وجاء رفاوة شهوة تشبينه يا صوم لأن الشهوة وحاكينا عنتظر بدن يا عبتان قبلا فالشهوة الزيادة روح عنتانك يا عبتانك هدو يريد الشهوة تنوى ضعيفة مرك الشهوة قاشان بكي شهوة نوح قاشان أغيها لأن الشهوة ما ينحب يقرد وحاك الله الصوم قاشان كي عذابك إله سبحانه وتعالى الصوم جنة يستجن به العبد من النار بنبر صلوات ربي السلام عليه وقاشان وأضونك كقاشان منه إلهي عذاب كيسا سبحانه وتعالى صون كمركز السنة نبي قوحي ربطو نار تقاشان بكاقا نقنين كو أرنت الله بعد النبي قوحي وحويا صدقة يدنا الزكاة واجب كذو على قصوها وصدقة السنة واحد لك الأول مستعب كالنافلة صدقة وحي باختساء الدميساء قفك سيد بيوه أي ضبك الدميات gafkaaga faraha badan ee habeen iyo maalin ba aad galayso waxa laga dhigayaa sidii dab holcahayo kale waad adiga dhanba waad karkaraysaa adiga dhanba wax karkaraya laga dhigay oo dunuubtaadana dab holcahaya waxa damiya dabkaas oo bakhtiya waxa weeyaan waa sadaqada waxay la mid tahay sidii dab holcayo kale oo inta dabdabis loo keenay biyo lagu shubay sidaas oo kale taa gafafkaaga iyo khaladaadkaaga waxa u daminaya oo bakhtinaya oo tirtiraya sadaqada Allah baxay tasmi'an marka sadaqada badso saka kaliya ku gaabsan saka kaliya ku gaabsanina waxa sameeyay sadaqada badso qaraabadaada ka xiriir masaakiinta si masaajida ka dhis
diinta ilaahay ku garab istaag dacwada ku garab istaag jaanis haddaad aragto wax haysato waxaa ka teg bixi khaladaadkaaga si ilahay kaaga tagtaro subxana wa tacala iyo dunuubta arrinta saddexaad ee nebigu uu kula teliyey waxay noqotay wa salaatu arajuli fii jawfi lleyl waxaa kaloo iyadana dunuubta baabi'iso oo damisa sida dabku biyaha u damiye oo kaleeto sida biyuhu dabka u damiyaan oo kaleeto waxaa dunuubta u baabi'iso u damisa salaada habeenka dhexdiisa ruuxu uu tukado habeen barhkii ama habeenka qaybtiisa dambe uu ruuxu isoo kaco ama intuusan seexanin uu tukado waa salaatuleylka wey habeenka salaada la tukada sunnadaada markaasaa nebigu wuxuu aqriyey salawatu rabbi waslamu caleyh aayadda qur-aanka arrintaa ka hadlaysa wuxuu rabbi ku tilmaamay dadka mu'miniinta tatajaafaa junuubuhum cani ilmadaajici dhinacyadoodu waxay ka fogaadaan meeshay jiifeen gobashay ka kacan yadcuuna rabbahum khawfan wa tamacan ayagoo rabbigood baryaya oo tuugaya maxay uga kacayaan oo rabbigood u tuugayaan khawfan wa tamacan baqdin ay ka baqayaan cadaabkiisa iyo cadhadiisa iyo damaaci iyo hunguri ka haya jannadiisa iyo naxariistiisa ilaa labadaasaaba soo kiciya dadka sooma habeenkii maxaa ina soo kiciya laba arrimood baa dabada inaga riixaya damac iyo hunguri inagu jiro jannada ilahay aan hunguriyeynayno sooma arrinta labaad oo ah khoofan iyo cabsi aan ka qabno cadaabka ilahi subxana wa tacala yadcuuna rabbahum khawfan wa tamacan wa mima razaqnaahum yunfiquuna waxaan siinayna waxbay ka bixinayaan markaasaa waxaa laga dambaysayey maxay ilahay agtiisa ku leeyihin falaa taclamu nafsun maa ukhfiya lahum min qurati acyun nafina ma oga waxa ilaahay agtiisa loogu qariyey ee u qarsoon oo waxyaalaha ilku faraxda ah waxyaala ilqabowsi ah oo lagu farxo oo ilaahay agtiisa u yaalla nafina kama warhayso cid ogaan kartana ma jirto sir ilaahay meel ugu qariyey waay jazaa'an bima kaanuu yacmaluun camalkoodii ay shaqaysteen abaalgudkiisii wey kaasaa looga abaalgudaya soo ma jeed maxaa ilaahay agtiisa yaalla maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar waxayna weligeed ilqabanin dhegina maqlin qalbina aan weligii ku soo dhicin bini aadan qalbigiisana weligii aan ku soo dhicin waxaasaa ilahay agtiisa ugu kaydsanoo loo qariyey bu rabbi ilahi subxana wa tacala dadkaasi marka habeenkii soo kaca